عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالقة وجنال كيني ماما شرف وإذا سو دوااد مeel kasta dunida daafida ka joogtiin walaalahayga qaaliga ah maanta waxaan idin hayaa mawduuceen maanta waxaa waaye in aan la faragashan farsamada ilaahay walaalahayga qaaliga ah si ku dhacday gabar Soomaaliyeed ayadoo ku diintay wiil oo abtigeeda oo faruuran iyo wiil kale oo joogo oo dadka oo fanaxda la faruuran ayay ku diintay walaalahayga qaaliga ah marka waxaan ka codsanayaa inaad ku diiminaha farsamada ilaahay aan la faragashan farsamada ilaahay wuxuu yiri ninkii aragtideeda rabo abuuristeeda ha arko walaalahayga qaaliga ah waxaa dhacday gabadhii markay ay ku diintay wiilkii fanaxda lahaa oo faruurnaay in ilaahay ayadii uur ay yeelato uurkii kadib ay dhasho markay dhasho waxay dhashay sidii oo kaleeto ninkii ay ku diinto kaleeto faruurta lahaay oo fanaxda lahaay oo kaleeto faruurnaay bay dhashay cunug mar alaale markay dhashay cunugii faruurnaay waxay tiri maya halayga fogeeyo kan ma la jeefanayo halayga fogeeyo cunugan saxabteeda qaaliga cunugii waxaa dhacday in ayayda oo baadiye jirto in loo dhiibo loo ayay cunuga haay ayayda sida cunuga ku hees walaalahayga qaaliga hadda cunug oo hooyadiis umul la gelin oo umul horta dhibaatada oo ku dhici karto waa iska dareemi karnaa muddo kadib cunugii wuu iska geeriyooday walaalahayga qaaliga markuu geeriyoodo waxaa dhacday in uu haddana ay joogto in badan haddana ay kadib uur haddana ilaahay siiyey haddii ilaahay ay u toobadkeeni lahayd dhihi lahayd astaghfirullah tooba ilaahay waa dambaabay waxaa macquul ahaa lahayd ilaahay ducadeedana waa aqbali lahay laakiinse ma aysan sameyn walaalahayga qaaliga uur kale yeelatay walaalahayga qaaliga hadday uur kale yeelatay haddana sidoo kaleeto cunug way dhashay wiil waxay dhashay sidoo kaleeto faruuran haddana dhashay walaalahayga qaaliga markii ay dhashay haddana sidoo kaleeto waxay isku furtay barbaleen waxaa waaye ayada dhan shoog waxaa dhacday in dhiigeedii oo dhaco dhiig la-aan ay ku dhacdo walaalahayga qaaliga kadib ayadii waa lasoo waday waxaa la keenay meel magaalada muqdisho la keenay meel gobolaha laga soo waday ayada walaalahayga qaaliga cunugiina guriga lagu haayaa ay kasoo tagtay ayadana magaalada lagu haayaa oo daawo iyo dabiib loola soo aaday dhiigeeda dhacay barbaleen badan isku furtay walaalahayga qaaliga marka ma ahan ilaahay wuxuu oo ku siiyey waa inaad alxamdulilah shukri aad tiraahdaa ma ahan anaga wax anaga aan samaysan karno ma ahan wax anaga aan keensan karno laakiinse waxaan iskaga degayaa walaalahayga qaaliga in aadan ku diimin qof oo iska macjuun ilaahay xaggiisa yani hadduu jiisi oo kaleeto hadduu illa yahay hadduu afka yani si ka yahay ma ahan farsamada ilaahay inaan ku diino walaalahayga qaaliga waxaan idka codsanayaa inaan lagu diimin sida gabadhaan ku dhacdo kaleeto cunugeeda halayga fogeeyey ay tiraahdo maasha allah iimaankana waa shay qaaliya waxaa dhacday hadda kahor gabarnimada inta ku weynaatay walaalahayga qaaliga waxay gaartay ayadoo 30 sano jirtaa la guursaday walaalahayga qaaliga 30 jir ayadoo baa la guursaday waxaa dhacday walaalahayga qaaliga in uur ay yeelato uur markay yeelato iyadana sidoo kale waxay dhashay cunug oo faruuran markaas dadku waxay dhaheen abo 30 sano adoo jirta cunug faruuran hadan dhashay waxay tiri cunugan faruuran dahabo iyo wuxuu iga qaalisnaa ilaahayga isiiyaan kun iyo kow jeer uga mahadnaqayaan ay tiri marka gabadhan saas tiri iyo midaan halayga fogay tiri farqi weyn u dhaxeeya labadooda walaalahayga qaaliga marka ilaahay aan soo hanuuniyo ilaahay xaqa hana wada tuso ilaahay ha loo wada noqdo walaalahayga qaaliga ma ahan in la yani la takaburo ma ahan in la yani qof aad ku diintid haddii aad qof ku diintid waxaa ogaataa in adigana aad qofkii sida aad yani ugu diinto kaleeto inaad ilaahay kaa soo goy karo marka walaalahayga qaaliga والله بالله gabadhaas aad iyo aad aan uga xumaaday ilaahay waxaan uga baryayaa in qalbigeeda ilaahay u dejiyo oo ilaahay soo hanuuniyo sababtoo ilaahayna iimaanka ha geliyo iimaanka maasha allah tabaaraka allah waa waxaan la heli karin qofka hadduu caloosha ka baahan yahay wuu u dhergi karaa laakiin hadduu qalbiga ka baahan yahay qofka ma dhargi karo qof qalbiga ka baahan ma dhargi karo walaalahayga qaaliga marka waxaan idka codsanayaa in oo lagu diimin dadka si aadan adigana qofkii sidoo ahaayo kaleeto aadan noqonin haddii ilaahay wuxuu ku siiyana alxamdulilah shukri rabbil caalamiin aad ku tiraahdid waaye
ma ahan inaad dhahdo halayga fogeeyo ama halayga tuuro ama halayga dhaco walaaleyga qaaliga ma ahan inaan dhahno marka waxaan isku codsanayaa in oo yacni aan farsamada ilaahay dadka lagu caayin ma ahan farsamada ilaahay dadka in lagu caayo waa qalad midaas walaaleyga qaaliga in lagu diimana ma aha marka haddii aad janalkayga ku cusub tahay subscribe dheh lagna ii saar ii share garay commentna ka bixi waad ku mahadsantahay daawashada ay daawateen walaaleyga qaaliga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu